miis weydiisay meeqa caalam ayaa jirto, meeqa caalam ayaad soo martay, meeqaas. Assalaamu calaykum, waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Ku soo dhawow mustaqbal wanaagsan. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiwaaxid. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, qof walba iyo xilligay u tahayba. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad u muhiim ah. Fadlan intaanan mowduuca guda gelin, walaal nagu soo biir si aad gruubkeena uga mid noqoto. Mahadsan. Mowduuceena maanta wuxuu ka hadli doonaa imise caalam ayuu qofka bilaadanka marayaa. Miis weydiisay meeqa caalam ayaa jirto, meeqa caalam ayaad soo martay, meeqaasa kuu dhiman. Ugu horeyn, waa maxay caalam? Caalam markii la yiraahdo dad badan ayaa waxaa laga yaabaa inay si kale u fahmaan, balse caalamka ayaa ah midka aan hadda noolnahay oo aniga aan hadlayo, adigana aad i daawanayso. Intaa kadib, caalamyada waxay ka kooban yihiin ilaa iyo 5 qaybood. midka koowaad waxaa la yiraahdaa caalamul arwaax. Caalamul arwaax waa caalam qofka naftiisa ay diyaarsan tahay jismi la'aan. Culimadu waxay sheegaan naf walba oo caalamkaas soo martay ama joogta la abuuray xilligii abuuna aadam calayhi salaam. Caalamkaas waxaa soo maray dadkii hore iyo dadka hadda jooga, sida tusaale ahaan adiga, aniga. Laakiin waxaa hadda jooga dadka boroseska ku jira ee dhalan doona. Intaa kadib, qofka wuxuu usoo gudbayaa caalamka kale. Caalamka labaad waa caalamul rixim. Waa caalamka qofka markii hooyada uurkeeda uu ku jiro oo caloosha uu ku jiro. Caalamkan waxaa kulmaya nafta iyo jismiga. Sidoo kale waxaa la qorayaa ajashiisa iyo risiqiisa iyo camalkiisa inuu xumaan doono iyo inuu samaan doono. Allah naga dhigo kuwii camalkooda u wanaagsanaa. Intaa kadib, qofku wuxuu usoo gudbayaa caalamka saddexaad oo ah caalamud dunya. Waana midka aan hadda noolnahay oo adiga aad i daawanaysid, anigan aan kula hadlaayo. Waana caalamka ugu muhiimsan ee qofka bilaadanka uu soo maro, taas oo caddeynaysa in qofka noloshiisa ay hagaagto ama noloshiisa ay xumaato. Waana kan sababa qofka inuu guulaysto haddii uu dadaalo. sidaa darteed waa inaan dadaalna si aan u guulaysano adduun iyo aakhiro. Haddaba caalamkan waa caalamka keliya ee loo shaqaysto adduun iyo aakhiro. qofka hadduu dadaalo, caalamkan wax walba ayuu samayn karaa. Markaas kadib, qofka wuxuu imaanayaa caalamka afaraad oo caalamul barsakh ah. Caalamkan waxaa la kala qaadayaa jismigii iyo naftii hore la iskugu geeyey. wuxuuna gelayaa qofka imtixaan yar. casharadii uu ku soo qaatay caalamud dunya ayuuna imtixaan ku gelayaa, waxaana la siinayaa natiijo yar. caalamkan waa meel aad u cabsi badan markii loo fiiriyo caalamyada kale, kana muruga badan. allow naga badbaadi dhibaatada iyo murugada iyo halista uu leeyahay caalamkan. intaa kadib, qofku wuxuu usoo gudbayaa caalamka ugu dambeeya oo ah caalamul qiyaama. caalamkaas waa caalamka ugu weyn, ugu waqtiga dheer, uguna murugada badan, uguna cabsida badan, uguna farxadda badan, hadba qofka siduu u shaqaystay. caalamkan waa caalam waxa yaala il bilaadan aysan arkin, dheg bilaadanna aysan maqlin, qalbi bilaadanna aysan ku soo dhicin. sidoo kale, qofku wuxuu u gelayaa imtixaankii ugu weynaa noloshiisa, natiijana lagu siin doono guul ama khasaaro. alle ayaan ka magangelaynaa khasaaro. ugu dambayn, waxaan nafteeda iyo naftaada ugu dardaarmayaa cabsida alle, lana dadaalo, maadaama aynu joogno caalamud dunya oo ah caalamkii shaqada, caalamkii dadaalka iyo caalamkii jaaniska. allow naga yeel kuwii guulaysta adduun iyo aakhiro. ogow, jaaniska lama haysatid. caalamud dunya waa caalamka jaaniska. fadlan ka faa'iidayso. mahadsanid. wabillahi tawfiiq. walaal ha iloobin, haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirto oo aad taabato subscribe-ka, like-na saarto, commentigana aad nagu dhiirigeliso. mahadsanid. wasalaamu calaykum waraxmatullah.